aqoonsashada wadan cusub waa himilo adag oo u baahan in la buuxiyo waxayna u baahan tahay shuruudo gaar ah oo ka mid yihiin helidda dad u dhaqdhaqaaqa oo waliba joogto ah dhul qeexan awood urur xiriir diblomaasiyadeed iyo taageero military wadamada Kosovo Taiwan Falastiin iyo Ogaadeniya ayaan wali helin madax banaani iyo aqoonsi rasmi ah tirada guud ee wadamada dunidu waa 197 waase hadii lagu daro Kosovo Taiwan iyo Falastiin si kastaba ha ahaatee tirada wadamada dunidu kama badata inta waxaana 20kii sano ee la soo dhaafay kaliya madax banaani helay 5 wadan oo cusub 2002 waxa madax banaani helay Timor oo ka go'day Indonesia 2006 Serbia iyo Montenegro oo kala noqday laba dal oo kala madax banaan 2008 Kosovo oo ka go'day Serbia 11kii waxa ugu dambeeyay dal calan qaata koonfurta Suudaan oo ka go'day Suudaan inteeda kale tan iyo markaas wadan kale oo cusub ma helin madax banaani rasmi ah laakiin hadii aan eegno mustaqbalka waxa jira gobollo iyo deegaano suurtagal u ah inay noqdaan wadamo cusub kuwaas oo in badan doonayay inay ku biiraan dunida xorta waxa ugu horeeya federaalka bariga Afrika waxa jirta fikrad la xiriirta yaglilida waxay ugu yeereen federaalka bariga Afrika oo ah isbahaysi lagu mideynayo wadamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo koonfurta Suudaan Uganda Kenya Tanzania Burundi iyo Rwanda inkasta oo fikirkaasi laga dooday muddo dheer haddana caqabado waaweyn ayaa wali hortaagan waxaana ugu horeeya iskaashiga ka dhaxeeya dalalka xubnaha ka ah musuqmaasuqa ka jira qaar ka mid ah dawladaha iyo xeerka federaalka oo aan wali la dhameystirin hadii federaalkan hergalo waxa uu noqon doona wadanka ugu weyn Afrika isagoo laba jeer ka weynaan doona dalka Algeria midowga Kosovo iyo Albania dhinaca Yurub waxa jirta fikrad ah in Kosovo iyo Albania ay midoobaan tani waxay sii xoogaysatay markii Kosovo ay ka go'day Serbia 2008 midowgii labada dal waxa loo arkaa inuu keeni karo faa'iidooyin dhaqaale sida kobaca ganacsiga iyo maalgelinta isdhexgal dhaqaale oo wanaagsan laakiin dadka ka soo horjeeda waxay sheegayaan inay keeni karto khilaaf goboleed sida darteed fikradani waa mid siyaasadeed oo aan hirgelin Transnistria waa gobol ku yaala bariga Yurub kaas oo si rasmi ah uga tirsan Moldova balse dadkiisa badankiisu waxay isu arkaan wadanka madax bannaan gobolka Moldova sababta ugu weyn ee arinta keentay waa kala duwanaanshaha luqadda iyo dhaqanka Transnistria waxa degan dad si weyn ugu hadla luqadda Ruusiga ah Moldovana waxa degan dad inta badan ku hadla afka Romaaniga ah inkasta oo Transnistria ay ku dhawaaqday madax bannaani 1990kii haddana ma jirto wadan rasmi ah oo aqoonsaday Ogaadeniya waa gobol ku yaala geeska Afrika oo xuduud la leh Ethiopia Djibouti iyo Soomaaliya waa dal la yaqaan xilligii lagu daray Ethiopia oo ay yaalaan waraaqihii lagu wareejiyay waxa uu dagaal gobonnimo doona ay ka socdeen teer iyo markii niman gaagaaban oo baqla saaran tunka kaga dageen wax yar un kadib qaybsigii qaaradda madow ee Afrika waxay madax bannaani ku dhawaaqeen 1993 waxaana madax bannaanidii ansixiyay baarlamaankii u horeeyay ee deegaankaasi yeesho kadib markay cuskadeen axdi qarameedka kumeel gaarka ahaa ee dalka Ethiopia laga ansixiyay 1992 kaasoo u saamaxay Eritrea inay ka go'day Ethiopia noqotana dal madax bannaan laakiin ku dhawaaqistaasi cidima aqoonsan waxaana xigay duulimaad Umala Sanaawi ku soo qaaday gobolka Ogaadeniya markaasoo 1994 bishii labaad ay jamhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya u baxday kor ma jiro cid u dhaqdhaqaaqda haatan madax bannaanida gobolka Ogaadeniya Jamhuuriyadda Carabta ee Sahrawi Arab Democratic Republic oo sidoo kale loo yaqaan Saharaha Galbeed waa dhul lagu muransan yahay oo ay sheegato Morocco taariikhdiisu waa mid dagaal iyo qaxar waxa gumaysan jiray Spain ilaa 1976 markii ay Spain ka baxdayna Morocco iyo Mauritania ayaa kala sheegtay lahaanshiyaha dhulkan dadka Sahrawi waxay doonayaan madax bannaani buuxda oo labada dawladoodba ay ka qaataan waqtigan xaadirka ah Morocco waxay gacanta ku haysaa in ka badan 80% dhulkaasi halka dadka Sahrawigu ay maamulaan 20% wadanka la yiraahdo Bougainville waa gobol si iskii ah isku maamula oo ka tirsan Papua New Guinea waxa ka jira khilaaf dheer oo la xiriira kheyraadka dabiiciga ah sida macdanta iyo naxaasta dagaal sokeeye oo socday 1988 ilaa 1998 kaasoo sababay dhimashada 10,000 oo qof ayay ku heshiiyeen in sanadka 2019 laga qaado afti dadweyne bishii December 2019 afti la qaaday waxay muujisay in 98% dadkii codadkooda dhiibtay
joogta ay u codeeyeen madax bannaani waxaana la filayaa in Bougainville ay si rasmi ah uga go'do Papua New Guinea sanadka 2027 haddii aynay wax iska bedelin oo dadka deegaanku mar kala dooran inay dalkoodii ka sii mid ahaadaan. Kurdistan dadweynaha Kurdiyiintu waa qoomiyad leh luqad iyo dhaqan u gaar ah taariikh dheer oo la xiriirta halgankooda madax bannaani. Haddii ay noqoto wadan Kurdistan waxay ka koobnaan doontaa dhulal ka kala tirsan maanta Turkiga, Suuriya, Ciraaq iyo Iiraan. Inkasta oo Kurdiyiinta qaarkood ay doonayaan madax bannaani buuxda haddana qaar kale waxay rabaan inay helaan ismaamul dheeraad ah. Tusaale ahaan maamulka Kurdistaanka ee Ciraaq wuxuu leeyahay xukun hoosaad u gaar ah 1992 wuxuu yeeshay baarlamaan madaxweyne iyo ciidan u gaar ah. Sanadkii 2017 afti aan sharciyeysnayn oo la sameeyay waxay muujisay in 92% dadkii codeeyay ay rabaan madax bannaani laakiin tani lama aqoonsan waxayna Kurdiyiinta la kulmeen cadaadisyo ka yimid dalalka dariska ah. Republika Sarabaska waa maamul hoosaad ka tirsan Bosnia iyo Herzegovina waxaana la aasaasay 1992 kadib burburkii ku yimid Yugoslavia. Badanka dadka ku nooli waa Serbiyiin waxa uu leeyahay maamul gaar ah oo ka madax bannaan dawladda dhexe ee Bosnia. Inkasta oo ay jiraan dad doonaya madax bannaani haddana tan lama aqbalin wuxuuna maxkamadda dastuuriga ah ee Bosnia ay mamnuucday afti lagu doonayay gooni isu taag. Puerto Rico waa dhul ka tirsan Mareykanka waxaana asal ahaan gumaysan jiray Spain ilaa 1898 inkasta oo ay leeyihiin xukuumad u gaar ah iyo madaxweyne la doortay haddana wali waxay ku hoos jiraan dawladda Mareykanka. Sanadkii 2012 afti la qaaday waxay muujisay in dadka intooda badan rabaan in Puerto Rico noqoto gobol rasmi ah oo ka tirsan Mareykanka laakiin arrintaasi wali lama hirgelin. Wadamo badan ayaa suurtagal u ah inay noqdaan dalal madax bannaan mustaqbalka laakiin caqabadaha hortaagan ayaa kala duwan. Waqtigu wuxuu sheegi doonaa wadamada rasmiga ah ee dunida ku soo biiri doona sanadaha soo socda. Waxaan ahay Muxiidiin Cabdi waxaad igala socotaan barta aan ku leeyahay Juqraafi Nabadino.